haweenka ciyaara kubadda cagta waxay wajahaan tartan adag raguna aysan wax khibrada u lahayn xilliga caadada iyo sidoo kale kubadda cagta sida ay isku saameysaa. waxyeeladu waxa ay cadaadis ku keentaa ilaa xanuunka uu gaaro heer dhaqaatiirtu ay la barbar dhigeen wadna xanuunka degdega ama kusoo boodada oo kale. qolqolka dhiigga caadada waa mid aysan raggu xitaa wax fikir ah aysan ka hayn, waxaana barbar socda xaalad nafsiyadeed sida walaac iyo sidoo kale isku buuq. sida ay tahayna dumarka kubadda cagta waxay awood u yeeshaan in ay ciyaaraan iyadoo oo weliba ay xaalad adag jiri karto. waqtiyada qaar waa kuwo aan la hubi karin, xaaladaha qaar xanuunku waa mid dhexe, saameyn kuma yeesho ciyaaraha fudud. mararka qaarna kubadda cagta waa wax u wanaagsan. daraasad ka mid ah kuwa la sameeyay ayaa sheegaysa 78% waqtiyadaas in la alamiiteeyo waxaa yareysaa calaamadaha qaar ee qabsan karo. in aad deesho kubadda cagta waqtiga caadada waa ku caawin kartaa haddii aad tahay gabar ku jirta ciyaarista kubadda cagta. waqtiga lagu jiro ciyaarista kubadda, maskaxda waxa ay soo deysaa dareen wanaagsan oo ka caawin kara yaraanshiyaha xanuunka. kaliya xanuunka ma yareyso, laakiin waxa ay miisaantaa wareegga dhiigga ee qofka. dheecaanadaas oo qayb weyn ka geysan kara yaraanshiyaha madax xanuunka waqtigaas imaan kara. mararka qaar waxa ay cadaadis ku noqon kartaa xilliga caadada haweenka dheela ciyaaraha adag ama ka midka ah tartamada adag. ciyaaryahanada gabdhaha ee qaar ayaa ku seega kulamada qaarkood sababo la xiriira in ay xanuun daran dareemayaan. haddii ay u maleeyaan in ay adag tahay xaaladda ay waqtigaasi ku jiraan, xidigaha qaarkood waxa ay xushaan in ay qaataan daawooyin yareeya xanuunka si ay kaga mid noqdaan kulamadaas markaas la ciyaarayo. marka aad tahay gabar ciyaarta kubadda cagta, aad ayay kugu wanaagsan tahay in aad waqtigaas ka mid ahaato kooxdaada. kubadda cagta waa wax u qaas ah marka dhanka kale loo eego haweenku inay ka mid noqdaan, maadaama ay u baahan tahay awood adag kana adag xaaladda ay raggu marayaan mid ka duwanna ay ku jiri karaan hablaha.